Mareykan, Mexico iyo kuwo kale ay ka mid tahay Panama ayaan maanta kaaga warbixin rabaa si aad wax badan uga ogaato walow uu maalmahan dambe batay u tahriibidooda. Aan kuu kala saaro wadamada Waqooyi Ameerika iyo Koonfurta Ameerika. Muuqaalkan waxaan kuugu soo gudbin doonaa 25 dal. 25 dal. Ka hor intaana muuqaalka kuu bilaabin, like saar. Waxaan ogahay inaad ka mid tahay dadka ku xiran kanaalka. Mahadsanid. Latin America waxaa la isku dhahaa wadamo juqraafi ahaan ku yaala Waqooyiga Ameerika iyo Koonfurta Ameerika. Dadkooduna inta badan Latin America waxa ay ku hadlaan Isbaanishka ama Boortaqiiska. Sidaas daraadeeda sababta loogu magacaabo Latin America waxa ay tahay Isbaanishka iyo Boortaqiiska in ay ka tirsan yihiin Laatiinka. Wadamada Latin America waxa ku yaalo wadamo madax banaan iyo kuwa aan madax banaaneen. Wadamadaasina waxa ku nool dad tiro badan oo qowmiyado badan ka soo kala jeedo. Brazil waxa ay ku taalaa qaaradda Koonfurta Ameerika waxayna haysataa bar ka mid ah badka qaaradda maadaama ay tahay wadanka shanaad ee ugu weyn. Caasimadeeduna waa Brasilia. Mexico waxa ay ku taalaa qaaradda Waqooyi Ameerika waana dalka saddexaad ee ugu weyn Latin America marka laga soo tago Brazil iyo Argentina. Mexico waa mid ka mid ah wadamada ugu qanisan Latin America. Colombia waxa ay ku taalaa waqooyiga qaaradda Koonfureed ee Ameerika. Wuxuu caan ku yahay wax soo saarka dhanka dhuxusha waana wadanka saddexaad ee ugu soo saarka badan bunka iyo dalka labaad ee ugu soo saarka badan uwaxa. Luuqadiisuna waa Isbaanishka. Argentina waa wadan madax banaan oo ku yaala koonfurta qaaradda Koonfureed ee Ameerika waxaana loo tixgeliyaa wadanka sideedaad ee ugu weyn adduunka. Sidoo kale waa wadanka labaad ee ugu weyn Latin America waxa ay qani ku tahayna kheyraadka dabiiciga waana dalka saddexaad ee ugu dhaqaalaha badan Latin America. Luuqadda rasmiga ahna ee lagu hadlo wadankaasi waa Isbaanishka. Peru waa wadan kuleel ah oo ku yaal galbeedka qaaradda Koonfur Ameerika. Magaca Peru waxa uu ka yimid Hindiya. Peru waxa ay qani ku tahay kheyraadka badda iyo macdanta. Sidoo kale waxa ay aad ugu fiican tahay dhanka dalxiiska. Venezuela waxa ay ku taalaa xeebta waqooyi ee Koonfurta Ameerika waxa ayna ka kooban tahay 23 dawladood. Venezuela waxa ay caan ku tahay saliidda gaaska. Wadanka toddobaad Chile waxa ay ku taalaa bartamaha Ameerika. Dhaqaalaheeduna waxa uu ku tiirsan yahay qaxwada, sokorta, sidoo kalena mooska marka lagu daro uwaxa. Wadanka sideedaad Ecuador waxa ay ku taalaa galbeedka qaaradda Ameerika waxayna u dhaxaysaa Colombia iyo Peru. Dhaqaalaheeduna waxa uu ku tiirsan yahay batroolka. Wadanka sagaalaad Cuba waxa ay ku taalaa Koonfurta Ameerika waxaana lagu hadlaa Isbaanishka waxayna caan ku tahay sokorta, tubaakada iyo liinta. Wadanka tobanaad Bolivia waa wadan aan lahayn bad. Wadankani dhaqaalihiisu waxa uu ku tiirsan yahay qalinka, dahabka iyo saliidda gaaska. Bolivia wuxuuna yahay wadanka 15aad ee ugu dhoofinta badan gaaska. Wadanka 11aad Republic of Haiti waxa ay ku taalaa dhinaca galbeedka ee jasiiradda Hispaniola ee badda Caribbean-ka. Haiti waa wadanka ugu saboolsan qaaradda Ameerika waxaana ku sababay xaalifinta kheyraadka dabiiciga. Dhaqaalihiisuna waxa uu ku tiirsan yahay beeraha. Wadankaanina dadkiisu waxa ay ku hadlaan Faransiiska. Dominican Republic waa wadan Caribbean ah oo ku yaal bariga jasiiradda Hispaniola oo waxa ay xuduud wadaagaan Haiti. Luuqadiisu waa Isbaanishka. Dhaqaalihiisuna waxa uu ku tiirsan yahay ganacsiga wax soo saarka beeraha. Honduras waxa ay ku taalaa bartamaha Ameerika wuxuuna ku dul yaalaa badda Caribbean-ka waana dalka labaad ee ugu saboolsan Ameerika. Luuqadda ay ku hadlaan dadkiisuna waa Isbaanishka. Dhaqaalihiisuna waxa uu ku tiirsan yahay ganacsiga iyo wax soo saarka. Paraguay waxa loo yaqaanaa wadan aan lahayn bad haddana ku yaala bartamaha Koonfurta Ameerika. Dhaqaalihiisu waxa uu ku tiirsan yahay beeraha wuxuuna ka mid yahay
waddamada ugu soo saarka badan digirta. Luuqadda rasmiga ah ee loogu hadlana waa Isbaanishka. Waddanka 15aad El Salvador waxa ay ku taalaa bartamaha Ameerika, wuxuuna u dhexeeyaa Honduras iyo Guatemala. Caasimaddiisuna waa San Salvador. El Salvador waxaa lagu tilmaamaa in ay tahay waddanka afraad ee ugu dhaqaalaha badan, inkasta oo uu yahay dal yar. Dhaqaalihiisuna waxa uu ku tiirsan yahay sokorta iyo dharka. Waddanka 16aad Nicaragua waxa ay ku taalaa bartamaha Ameerika, inta u dhaxayso Costa Rica iyo Honduras. waana waddanka ugu saboolsan bartamaha Ameerika. Faqri iyo shaqo la'aan ayuu isku darsaday, wuxuuna caan ku yahay laba badood, Pacific iyo Atlantic. Luuqadda loogu hadlana waa Isbaanishka. Waddanka 17aad Costa Rica waxa uu ku yaalaa bartamaha Ameerika, waxa ayna xad la wadaagtaa badda Caribbean-ka iyo badweynta Pacific. Waxa ayna caan ku tahay dhoofinta hilibka lo'da, mooska, bunka iyo sokorta. Costa Rica waxa ay dadka ka dhigtaan inta badan dalxiis. Luuqadda loogu hadlana waa Isbaanishka. Waddanka 18aad Panama waxa ay ku taalaa bartamaha Ameerika, inta u dhaxayso Colombia iyo Costa Rica. Panama waxa ay caan ku tahay cimiladeeda kuleelka badan. Waddanka 19aad Puerto Rico waxa ay ku taalaa dhanka Caribbean-ka ee bariga. Luuqadda rasmiga ah ee loogu hadlana waa Isbaanishka. Waddanka 20aad Uruguay waxa ay ku taalaa koonfurta Ameerika, waxayna u dhaxaysaa Brazil iyo Argentina. Luuqadda waddankaasi looga hadlana waa Isbaanishka. Waxa ay caan ku tahayna dhul xeebeedka ee barwaaqada badan iyo buuraha. Dhanka dhaqaalaheeduna waxa uu ku tiirsan yahay beeraha. Waddanka 21aad Guadeloupe maybe ina qaldoy dhawaaqa waxa ay ku taalaa dhanka Faransiiska, waana koox jasiirad ah oo ku yaala badda Caribbean-ka. Luuqadeeduna waa Faransiis. Dhaqaalaheeduna waxa uu ku xiran yahay dalxiiska. Waddanka 22aad Martinique waxa ay ku taalaa badda Caribbean-ka ee Faransiiska. Luuqadeeduna waa Faransiis. Dhaqaalaheeduna waxa uu ku tiirsan yahay beeraha iyo dalxiiska. Waddanka 23aad French Guiana waxa ay ku taalaa xeebta waqooyi bari ee qaaradda Koonfur Ameerika. Luuqadeeduna waa Faransiis. Waxa ay ku xiran tahay wax soo saarka iyo dhismaha. Waddanka 24aad Saint Martin waxa ay ku taalaa dhinaca waqooyi bari ee badda Caribbean-ka. Luuqadeedu waa Faransiis. Waxa ay caan ku tahayna dalxiiska, waxayna leedahay xeeb soo jiidasho leh. waa macquul inaa qaldo dhawaaqa ha ii qabanina. Waddanka 25aad Saint Barthélemy waxa ay ku taalaa bariga badda Caribbean-ka. Luuqadeedu waa Faransiis. Dhaqaalaheeduna waxa uu ku xiran yahay dalxiiska. Marka laga soo tago kheyraadka, suufka, xoolaha iyo cusbada. Latin America waxa ku yaalo dalal madax banaan, marka laga soo tago jasiirado qaar ay leeyihiin Faransiiska. Dalalkani waxa lagu kala